qaybtan waa qaybtii labaad wararkii warbixinay dhinaca dunaasiyada horfadhi media dabcan sidoo kalena waxay noo soo socdaa barnaamijkeedii dhul mar xildhibaan maxamuud nuur oo kamid ah dadka Soomaalida ah ee heerka ka gaaray dhinaca siyaasadda gudaha Maraykanka ayaa inoo soo socda iyadoo wareysigiisa aad ka ogaa doontaan axwaasha dadka Soomaaliyeed ee Maraykanka ku sugan gaar ahaan gobolka Minnesota ee dalkaasi Maraykanka iyo sidoo kale siyaasadda Maraykanka gudaha waxyaalaha Soomaalida ka dhanka iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda iyo waliba sida ay Soomaalidu u tahay inay u diyaar garoobaan iyo waliba inay Soomaalidu heer ka gaari karto siyaasadda ayaa inoo soo socda daawadayaal waa barnaamijkan dhul mar qaybihiisa ugu xiisaha badna qaybta shanaad ayaa inoo soo socota qaybo kale oo ay kamid tahay sheekooyinkii iyo waliba ay aragnimadii inoo socotay dagaalkii labaad ee adduunka waxyaalaha ku saabsanaa burburkii Jarmalka iyo waliba lacagta iyo waliba doorarka ay dalalka qaarkood iyo jaaliyadooda ku leeyihiin Maraykanka ayaad ku boga doontaan barnaamijyada kale ee inoo harsan sidoo kalena maxadka daraasaadka iyo cilmi baarista Heritage iyo waliba shirkii Djibouti wixii ka soo baxay iyo daraska ay sameeyaan cidda ay u shaqeeyaan iyo cidda ay markaasi u taagan yihiin ayaa iyaguna kamid ah barnaamijyada inoo soo xigi doona barnaamijyada barnaamijka dhulmar waxaa daawataan maalmaha Sabtida iyo waliba saalisada waxaana idin ballan qaadana daawadayaal inaan barnaamijyo wareysiyo taariikh xogo iyo waliba baaritaano aynu ku markaasi bandhigno aan ku soo qaybtii labaad waa 12 Janaayo waa maalin Sabti 2019 waa markale barnaamijkeeni falanqaynta dunida warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda dalka Maraykanka waxa maalintii markaasi weegi ama toddobaadkii ugu horeeyay jeegoodii ama lacagtii ay qaadan jireen mushaharka ahayd ee labada week ee wada socda waaya kubnaan kamid ah shaqaalaha dalka Maraykanka iyadoo arintaas ay mudaharaadyo weyn dalka ay ka dhalisay ninka hogaamiye aqalka sanadka aqlabiyada badan ee Republicanka ah Mitch McConnell ayaa ka carraabay magaalada xarunta u ah dalkaasi Washington DC asagoo u ambabaxay gobolka uu ka soo jeeday Kentucky gaar ahaan magaalada Louisville oo uu ka degan yahay halkaasi kadib markii uu diiday in uu dhageysto cabashada dadka mudumaraadiinta iyagu sheegaya inay u doodayaan xubnaha laga goostay jeega ama lacagtooda ama mushaharka laga goostay ee qarashaadkoodii aan helin weegii ugu horeeyay ama jeeg u horeeyay ee labada weeg ay marqaada jireen waxa uu McConnell uu sheegay in ay u baahan yihiin dimuqraadiyiintu inay la tacaamulaan ama ay la heshiiyaan buu madaxweynaha Maraykanka iyo maamulkiisa asagu si aysan arintu u olin taasoo ay ku tilmaameen xubnaha aqalka sanadka ku jira ee dimuqraadiyiintu inay tahay waxay ugu yeedheen tacaddi loo geysanayo dadka markaasi danyarta ah ee shaqaalaha ah waxa ay uu yiri mid kamid ah xubnahaas oo la yiraahdo Senator Chris Van Hollen oo laga soo doortay gobolka Maryland ee dalka Maraykanka ayaa yiri Mr McConnell cararkiisa uu ka cararay magaalada Washington isla markaana uu u gooyay annagoo ku dhex jirna dood aan ku furdaaminayno arintan ama xiritaanka dawladda waxay taasi muujinaysaa ayuu yiri in asaga iyo xubnaha gacansaarka lale ay yihiin gumaysta ka damaysa ayuu yiri dhibaatada lagu hayo dadka wuxuu yiri shaqaalaha ee u shaqeynaya qaranka iyo ammaankiisa ayuu sheegay xubnahaas oo si adag arinta uga hadlay arintan ayaa sidoo kale waxay shaaca ka qaaday iyadoo xubnaha ama dad ka tirsan halkudhegiyo ay soo saareen shaqaalaha ayaa halkudhegood wuxuu ahaa gidaar ma rabno ee mushaharkayga ma ka helna madaxweyne Trump iyana warkaasi ula jeedeen waxayna sheegeen inaysan ayagu waxba ka qusanin gidaar iyo wax la weegaarayo balse ay u baahan yihiin in carruurtooda ay helaan caanahooda isla markaana ay taageeraan qoysaskooda wali warbixino dhinaca diblomaasiyadda ah ayaa idin haya daawadayaasha qiimaha leh marka horfadhi media wararka diblomaasiyadda ay daawadayaasha qiimaha leh idin keento runtii waxa hubaala in wararka anagu dadka aanu ka helno iyo waliba mas'uuliyiinta aanu ka helno ay yihiin kuwa la isku hadlay karo isla markaana horfadhi media waxay xiriir la samaysaa dadka waxgalka aqoon-yahanka ah isla markaana danaynayaasha deegaanka ama dalka ama dadka Soomaalida ee markaasi arinta khusayso ama arinta laga hadlay wargeyska caanka ee la yiraahdo The Independent ayaa soo qoray isla markaana banaanka soo dhigay wixii uu daaraa safarkii wasiirka difaaca ama xogayaha difaaca Mr Gavin Williams oo uu sheegay isla markaana uu banaanka soo dhigay in markii hore uu qorshe u ahaa inuu booqdo magaalada xarunta u ah Soomaaliya ee Muqdisho kulana uu la qaadan lahaa madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana uu sheegay in ayrintii wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo xadhigii Mukhtaar Roobo Abu Mansuur ay weecisay go'aankiisii arintaasi Gavin Williamson ayaa socdaalkiisa u weeciyay magaalada Hargeysa oo ah caasimadda Somaliland oo horey ugu dhawaaqday inay yihiin dal ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale hase ahaatee aanay helin wali wax aqoonsi caalami ah ayaa lagu yiri warbixinta wasiirka difaaca UK Gavin Williamson ayaa 6 bishan booqday magaalada Hargeysa isagoo la kulmay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo qaar kamid ah wasiirada maamulkiisa
ama dowladda Soomaaliya ayaa kowdii bishan go'aan culus ka soo saartay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom saacada kadib markii uu soo saaray warqad uu ku dalbanayo in sharaxaad laga bixiyo dhacdooyinkii ka dhacay Baydhabo iyo xariga Mukhtaar Roobow kaasoo loo diray wasiirka amniga saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda wax yar kadib kolkii uu safiirku soo saaray ama danjiruhu soo saaray arintaas ayaa lagu sheegay in uu yahay ninkan aan dalka laga doonayn isla markaana la saaray go'aanka loo yaqaan inuusan dalka uusan soo gali karin ama uusan joogi karin wargeyska The Independent ayaa sheegay in Mukhtaar Roobow 13 bishii hore ee December 2018 laga soo qabtay Baydhabo ay ahayd talaabo qaldan waxayna ku macnay intaas ay aaminsan tahay dowladda Britain in wadaadkan oo ahaa qofkii ugu sareeyay ee bedela aragtidiisa kana soo baxay al-shabaab ay hoos u dhigayso xubnaha kale ee ku dhiiran lahaa inay dowladda isu soo dhiibaan ayaa wargeysku yiri balse wargeyska ayaa sheegay in taas tahay aragtida dalka Britain isla markaana ah aragtida wasaaradda difaaca dalkaasi taasna ay keentay in ay u weecdaan dhanka Hargeysa sidoo kale wargeyska ayaa sidoo kale banaanka keenay arin aynu hore u sheegnay oo runtii daawadayaasha horfadhi aan sir ku ahayn laakiin sir u noqon karta dadka markaas warbixintu maanta u cusub tahay taasoo ahayd in xiriirka dowladda Maraykanka iyo Ingiriiska ay iska kaashanayeen hawlgalkii Mukhtaar Roobow looga soo badbaadiyay deegaanada al-shabaab ay ahayd mid jirta oo ay ka wada shaqeeyeen sidoo kalena booqashadii uu ku yimid magaalada Muqdisho bishii Agoosto sanadka 2018 uu la kulmay madaxweyne Farmaajo iyo saraakiisha ciidamada dowladda iyadoo Ingiriisku ay ciidamo ka joogan Soomaaliya kuwaasoo looga hadlay ama shirkaas oo looga hadlay qadiyada ay kamid ahayd soo gacan galista iyo soo dhiibista Mr. Roobow ay qayb ka ahayd qaraar qabyo ah oo ay Britain hore ugu gudbisay golaha ammaanka qaramada midoobay kana dhanaha go'aanka xukuumadda Muqdisho ku cayrisay Haysom ayaa lagu sheegay in goluhu ka xun yahay talaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya ayaa warbixinta Independent lagu yiri Independent sidoo kale wuxuu sheegay in ay arintan ay ahayd ayaa la yiri fariin siyaasadeed oo loo dirayay xukuumadda madaxweyne Farmaajo oo ah in ay Britishku ay xiriirkooda ay leeyihiin Somaliland ay markay doonaan ay ka tagi karaan magaalada Hargeysa taasi waa exactly waa wixii aanu tabinay daawadayaasha qiimaha leh dad badan oo runtii wargeyska Independent yaqaana waxaan malanayaa inay booqan karaan isla markaana fiiri karaan sidoo kale daawadayaasha qiimaha leh Warfadhi Media sidoo waxaan jecelahay in wararka dhinaca sirdoonka iyo xogaha waaweyn ee dhinaca diblomaasiyadda aynu mar walba ku horeeyno isla markaana uu noqdo hoy ummadda Soomaaliyeed wararka xogaha dhabtaasiya in badan baynu idin sheegnay in siyaasadaha ka taagan deegaanada Soomaalida iyo dhulka Soomaalida geeska Afrika oo dhan Soomaalida ku sugan ay yihiin kuwo ay gacmaha si weyn ugu jiraan reer galbeedku isla markaana iyada Soomaalida la isku uleeyo oo marka qolo ay wax diido qolo kale dhingad ahaan loo isticmaalo si kastoo ay noqotaba muhiimadda ugu weyn waxa weeye Soomaalidu inay one day maalin isku timaado hadii alla idmo isla markaana ayagu waxay ku heshiyaan iyo waxay isku afkartaanba xal Soomaaliyeed uu yimaado wada hadal Soomaaliyeed uu yimaado isla markaana aynu si uu samata baxno ayaan rajeenayaa daawadayaasha qiimaha leh halka nagala socotaan oo Warfadhi Media ee Maraykankuna waxa uu diiday isla markaana uu ganafka ku dhuftay ayaa dalabka dalka Turkiga ee ah in ay hubka culus ay u gacan galiyeen kooxda People's Protection Units ay la wareegaan isla markaana ay ku darsadaan hubka ay ka daabulayaan iyo kolonyaysiga ay ka kolonyaysanayaan dalka Suuriya warbixin ay arintaasi ka soo tabinayaan warbaahinta dhinaca sirdoonka dalka Turkiga ayaa waxa ay sheegeen in hubka culus ee kooxdaasi gacanta ugu jira waxa la yiri cilaaqaadka hoose la leh kooxda PKK ee ayagu ka dagaalamayay dalkaasi gobollo ka tirsan dalkaasi Turkiga isla markaana haatan gudaha ugu jira dalka Ciraaq ay ka dhigan tahay ayaa la yiri in Maraykanka uu soo fulin baa la yiri wax loogu yeeray heshiis dhinaca saaxiibtinimada ee gaashaanbuurta NATO dalalkooda u dhaxeeya kaasoo ah in kooxo dawladuhu diidan yihiin aan la isku hubeynin horey Maraykanka wuxuu sheegay in ay sumad leeyahay hubkaasi ama uu leeyahay wax loo yaqaan serial number oo ah sumad lagu soo qaban karo isla markaana ay ku dhagan tahay chip yar ay ku dhagan tahay oo sheegaysa hubkaasi meesha uu yaalo kolka kooxdii la oran jiray Daesh laga guuleystay laga falxashana ay soo celi doonaan taas ayaa la sheegay inaysan jirin wax calaamada oo muujinaya in Maraykanku arintaasi uu fulinayo sida ay sheegayaan saraakiil dhinaca wardoonka oo Turkiga oo ay xiganayso warbaahinta dalka Turkiga gaar ahaan kuwa dhinaca wararka sirdoonka iyo wararka heerka sare ah soo markaasi gudbiya waxaa la sheegay in 22,000 oo hub ah oo isugu jira baa la yiri qoryaha dardooriga u dhaca hub kuwa lagu qaado meelo markaas storage ah meelaha hubka lagu kaydiyo bakhaaro iyo waliba sidoo kale waxaa la yiri baabuurta isjiida ee qaarkood ay yihiin kuwa gaashaaman ay gacanta ku hayaan YPG isla markaana la isku halleeyo karin waxayna ka digeen ciidamada dalkaasi Turkiga in ay qaadi doonaan weerar culus hadii uu Maraykanku u diido in uu hubkaasi la wareego ama uu ku wareejiyo gacmo kale oo sax
si kastaba ha noqotee arrintaas ayaa laga yaabaa iyadoon inay weji kala yeelato aaraaba haddii alla idmo ilaahay nafteena daayay daawasha qiimaha leh wararka dhinaca markaasi waaweyn ee dunida ishana ku hay doona ee qodobka ugu dambeeya warbaahinta dalka Sacuudi Carabiya gaar ahaan al-Carabiya ayaa wuxuu soo bandhigay 16 bog oo qoraal ah oo ay ku sheegeen inay yihiin waxay ugu yeedheen confidential documents ama dokumentiyo ama waraaqo sir ah oo runtii bay yiraahdeen ko aan loogu talagalin in dadka shacabka ay arkaan balse ayagu ay gacanta ku dhigeen hase yeeshee waxay sheegeen in arrintan ay tahay 16 bog heshiiskii sirta ahaa ee dhinaca militariga ee dalalka Qatar iyo dalkaasi Turkiga u dhaxeeyay inkastoo qodobada aynu wada akhriin badankooda aan fiiriyay 16 bog oo runtii aan isha si weyn u marinay oo qaarkood ay yihiin kuwa markaasi iska caadi ah ayaa waxa qodobka ay doorteen warbaahinta Sacuudi Carabiya aan inaguna aan sheegno waana qodobka kaliya ee ayagu ay ka dhaxarkeen inay tahay wax markaasi la baahi karo runtiina muhiimadda ugu weyn aan warkan qodob ahaan ugu soo daray ma aha in qodobka warbixintan ay xambaarsan tahay uu yahay qodob saa u weyn balse waxaan ugu soo daray in aynu ogaano sida warbaahinta Sacuudi Carabiya ay dagaalka xoogan ugula jirto dalalka Qatar iyo dalka Turkiga oo maalin walba ay soo qoraan warbixino ka dhana Turkiga iyo Qatar iyo waliba Iran ayagoo targetkooda ugu weyn tan iyo intii Jamal Khashoggi la dilay markii hore Qatar iyo Iran aad bay u maagi jireen laakiin Turkiga waxay ku soo dareen tan iyo intii Jamal Khashoggi la dilay dalalkana labada dal oo cilaaqaadkooda aad u xumaaday taas ayaan rabaa inaynu يعني فكر كأهل هيستان دعوة قيمة على هل كأدونكم مرة يدلالك إسديدا إن المرة ما دام إن المرة ورك عالم كأنه وين هو يهان سقوع ما بدني وين نسينا وحدينا يتاس ساد راديد دولة دلك السعودية العربية وربعين تيدا أفكا كوحدة دولة العربية وحي هذين هشيز كأي وحكم إذا قضب موتشينيا أي هذين إن لو حد قد بيلاقنا برصدي دلك قدر إسلام كان أي تركيدو كبرصدين وحان الله شيء مركزي إن أرنتا كساب سن باليدي أما أرنتا حقيقة باليدي كساب سن heshiiskan ay ahayd ayaa la yiri ama ay cadeynayso in dawladda dalkaasi Turkiga ciidankeeda ama ciidan ka tirsan baa la yiri oo ka tirsan dawladda dalkaasi aysan haba yaraatee hadii ay galaan wax dambi ah oo ay ku galaan ciidda dalkaasi ama ay ku xadgudbaan shuruucda dalka si qadar aan wax maxkamadda la soo taagin isla markaana aan wax kiisa ama wax dambi lagu soo oogin taas ayaana kamid ah balay qodobada aan u danaynayn balay dadka reer Qatar ee qodobka ku qoran waxa warbixinta sidoo kale lagu sheegay in arintan ay sidoo kale qeexday balay oo ay ku jirto in dalka Qatar iyo dalka Turkiga ciidankooda ay yeeshaan balay istifaacid xoogan oo weyn oo runtii markaasi si weyn ay u tahay balay mid muhiimad u sameynaysa haatan balay amniga dalka Qatar taasoo ay u ictiqaadsan tahay dhankooda balay qadariyiintu daawadayaal هموجانين مرة كل يبرامج كي دول مر محمود نور حلبان محمود نور أيا إنه جو عسون سلبر كان وكهذا يقضي بوابين ورئيسي أيا ذي هنا برامج كذا سيكون كلام وبقلي دون تنضاوض يال أمانة